kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada ay naga daawanaysaan idilkiinba halka aad nagala socotaan oo ka daawataan barnaamijyo isugu jira arrimaha fanka siyaasadda dhaqanka iyo waliba arrimaha bulshada meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtigu ha idin wacnaado ilaahayna ha idin xifdiye ilaahayna umuuraha aad leedihiin ha sahlee muuqaalka lay garay lana sii wadaaga saaxiibadaada waxaana idin rajaynaynaa cid walba muuqaalka lay garaysa in ilaahay umuurahooda uu sahlo ilaahayna faraj khayr qaba uu furo gargaarkiisa iyo nasrigiisana uu siiyo waxaan eegi doonaa fanaanka Qamar Suugaani oo ku wajahan magaalada London ee dalka Ingiriiska kana baxay dhibaatooyin muddooyinkii ugu dambeysay lagu hayay xilli uu ku sugnaa magaalada Hargeysa ayadoo dhowr mar la isku dayay Qamar Suugaani in la xidho isla markaana loo saariyo kiisas been abuur ah sida in gabar uu ureeyay kal hore ay soo abaabuleen booliska magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland arrintaasina ay noqotay been abuur haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad ku aadan Qamar Suugaani oo ku sii jeeda magaalada London ee dalka Ingiriiska iyo waliba socdaalkiisa London ayaa daawan doontaan hadduu Allah awood leh uu saamaxo fanaanka Qamar Suugaani waxa uu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee muddooyinkii dambe heesihiisa sida weyn ay u jecel yihiin bulshada Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika waana fanaan si weyn uga dhiidhiya waxaana uu aaminsan yahay waxaana dhowr mar Somaliland ay kula dagaaleen arrimaha Soomaaliya iyo waliba aadistiisa oo uu sheegay inuu aadayo magaalada Muqdisho Soomaaliyana ay u tahay Soomaaliya taasoo keentay in ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa jirdil xoogan ay u geysteen fanaanka Qamar Suugaani kadib jirdilkiisa waxa uu ka hadlay jirdilka ay u geysteen ciidamada Somaliland ayadana taasi ay keentay in fanaanka Qamar Suugaani gabar ay sheegtay inuu ureeyay isla markaana cod ay ka duubto taasoo la doonayay in loo saariyo fanaanka Qamar Suugaani si loo ciqaabo ciidamada Somaliland ay u xiraan laakiin arrintaasi waxa ka dhiidhiyay qaybo kamid ah bulshada oo si weyn u isticmaasha social media kuwaasoo naqdiyay warka been abuurka ah ee laga faafiyay fanaanka Qamar Suugaani kadib fanaanka Qamar Suugaani waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Nasiim oo uu dhalay abwaan caan ah oo la yiraahdo abwaan Cabdillaahi Sooraan waxaanu ka mid ahaa abwaanadii hore oo Soomaalida isla markaana ah nin majaajilaysta ah oo si weyn ay u taqaano bulshadeynta Soomaalida walina dhanka riwaayadaha waxaana uu guursaday markii ay kala tageen xaaskiisii hore ee Gubad Aragsan taasoo keentay in aroos cajiib ah walina aroos weyn loo dhiga fanaanka Qamar Suugaani waxaana xaaskiisa hadda la sheegay dhawaan inuu guursaday ay u leedahay uur ayna ku noqotay halkii ay ka timid waana Ingiriiska waxaana la sheegay in fanaanka Qamar Suugaani loo furay dacwadiina uu ku guuleystay isla markaana dhawaanaha soo aadan uu ku sii jeedo magaalada London ee dalka Ingiriiska si uu la noolaado xaaskiisa oo dhawaan uu guursaday Nasiim Cabdillaahi Sooraan waxaana wararka intaas ay sii raacinayaan in fanaanka Qamar Suugaani uu ka bixi doono magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya isla markaana fiisaha dalku galka uu ka qaadan doono xafiiska Nairobi si uu la noolaado afadiisa Nasiim oo dhawaan uu guursaday fanaanka Qamar Suugaani oo ka mid ah fanaaniinta sida aadka ah loo jecel yahay ayaa dhawaan u anba bixi doona magaalada London haddaba wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco barteena YouTube-keena wararka ka soo kordhana halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa waxaana idinkaga tagi doonaa